Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your English teacher Khalid Yonis Osman. Welcome to lesson 9. Kusoo dhawow casharkii sagaalaad waa taxanihii aynu kor ugu qaadaynay speakingka luqadda Englishka. Okay? Maanta waxaynu dhigan doonaa qofka marka aad rabto inaad ku casuunto ama xaflad aad qabsanayso ama safar aad galayso ama waxaad qabanayso aad jeceshahay inuu qof kale kula qabto waxyaabaha erayada aad isticmaali karto inaad qofka ku casuunto iyo haddii adiga lagu isticmaalaba jawaabihii aad bixin kari lahayd ayaynu maanta ku dhigan doonaa cashirkan iyo cashirka ku xigaba insha Allah. Okay, waayahay maanta I am going to waxaan u socdaa Hargeysa. Okay, anaa ku invite garaynaya. I'm going to Hargeysa. Hargeysaan u socdaa. Would you like to go with me? Ma dooni lahayd inaad i raacdo? Okay, I am going to Berbera. Berberaan u socdaa. Would you like to go with me? Ma dooni lahayd inaad i raacdo? I am going to Addis Ababa. Addis baan ku socdaa. Would you like to go with me? Ma dooni lahayd inaad i raacdo? waayahay waxaad rabtaa inaad i raacdo ama casuumkii aan ku casuumay baad iga aqbashay maxaad dhihi kartaa hadaad iga aqbashay oo aad rabtay inaad i raacdo inta soo socoto oo dhan 10kan weedhooyin ee soo socdo oo dhan waad i dhihi kartaa maxaa ka mid ah would you like to go with me baan ku yidhi maxaad i dhihi kartaa that sounds great, that sounds fantastic, that sounds nice, that sounds terrific, that sounds marvelous, that sounds splendid, that sounds fun, that's good, that's great, that would be nice, that would be interesting, that would be good, what a good idea, what a great idea, what a splendid idea, what a fantastic idea, what a marvelous idea. hal shay baan ku weydiiyey ma dooni lahayd inaad raacdo maxaad i odhanaysaa that sounds fantastic yacni haa waan ku raacsanay wey war fiican baad sheegtay marka horeba inaad intaa tidhaan baan sugayo okay what a fantastic idea, what a marvelous idea, that would be nice, that sounds splendid, that sounds terrific, that sounds so nice. Inta waad dhihi kartaa okay intaba hee waad dhihi kartaa waayahay ama way kuu suuro geli weyday oo qofkii keligii buu baxay wuu ka soo noqday safarkii shir oo kale ayuu baxay tusaale ahaan kasoo qaadba wuxuu ku yidhi qofkii we have a picnic next Sunday axadda soo socota waan yar soo shirna waan soo lugaynaa meelahaas ayaynu tegtegaynaa waayo qofkii weynii suuro geli weyday oo isagiiba iska tegay okay ama wuxuuba ku yidhi I'm going to the cinemaan tegaya miyaad raaci oo walaal cafwan kuma raaci kara iska socod wuu tegayba markii uu soo noqday eed kulanteen ayaad weydiinaysaa waxaad ku leedahay how was the picnic shashirkii yar ayaad soo lugaynaysaan siduu ahaa how was the cinemuhu siduu ahaa hadduu qofku xaflad tegayo xaflad kugu casuumay waad raaci kari weyday waxaad weydiinaysaa how was the party xafladdu say ahayd how was the vacation fasax buu u baxay oo uu safrayay oo inamari buu ku yidhi oo waad ka cudur daaratay waad kulanteen mar labaad maxaad ku leedahay how was the vacation say ahayd suu ahaa fasaxi or how was the programkii aad soo qabsanaysay aad ii raaci lahayd siduu ahaa maxaa ka dambeeyey siduu noqday kaba soo qaada adiga in su-aalaha lagu weydiiyey qofka maxaad ugu jawaabi kartaa haddaan ku idhahdo how was the party xafladda say ahayd erayadan ama weedhooyinkan intan soo socta ayaad ugu jawaabi kartaa waxaad dhihi kartaa it was so nice, it was fantastic, it was really interesting, it was superb, it was great, it was excellent, it was wonderful, it was splendid, it was terrific, it was amazing, it was fascinating, it was astonishing, it was
entertaining. It was terrible. It was challenging. It was boring. It was bad. wuxuu hadduu negative yahay waxaad isticmaalayaa terrible. It was terrible haddaad tiraa aad buu xumaa wey. It was challenging, aad buu adkaa u hawl badnaa. It was boring, caajis buu ahaa. It was bad, aad buu u xumaa. Okay, u xumaa. Astonishing, cajiib buu ahaa. Entertaining, mid nafta ay ku madadaalisid buu ahaa. Fascinating, xiiso badan. Amazing, cajiib ah. Terrific, marvelous, splendid, wonderful, amazing bay la macno yihiin. Excellent, aad u fiican. Great, wanaagsan. Superb, interesting, xiiso badan. Fantastic, cajiib ah. So nice, aad u fiican. Good, wanaagsan. Superb, cajiib ah. intaba waxaad u isticmaalaysaa markaad qofka u sheegaysid. intaa ma isla fahanay? Okay, wixii comment aad hayso qaybta comment sectionka inoogu qor. cashirka ku xiga lesson 10 cashirka markaad dhamaysato lesson 10 u gudub. Thank you very much. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. xaggaas ayaynu maanta ku joojin doonaa.